madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran ayaa magacaabay guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Guddigan ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan sidii uu soo xuli lahaayeen hildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay ka koobnaan doonaan 95 xildhibaan. maanta ay taariikhdu tahay 10 February 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay guddi doorasho ee madax banaan ee soo xilista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. warqad sumadeedu ay tahay eber 96 ujeedo magacaabid guddi farsamo madax banaan ee soo xilista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa labaad ee magacaabida guddiga madax banaan markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo in la helo guddi farsamo madax banaan oo maareysa xulista xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya u magacaabay guddi farsamo soo xulista doorashada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. xubnahaas oo kala ah Maxamed Kerow Maxamed Gudoomiye, Nuurdin Ibrahim Aadan Gudoomiye ku-xigeen, Aadan Maxamed Ali Xoghayn, Mawlid Xasan Axmed xubin, Jeelaani Maxamed Coof xubin, Faaduma Maxamed Axmed xubin, Aamino Umar Maxamed xubin, Umar Ali Isaaq xubin, Faarax Sheekh Maxamed xubin, Caasho Ibrahim Ali xubin. xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markii uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran uuna saxiixay. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum.